Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu daawadayaal dhegeystayaal meel walbo dunida ka joogtaan halkan waa gobonimo doon TV qodobada maanta oo idiin hayana waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo gaaray magaalada Dooxa ee caasimadda dalka Qatar. Israa'iil oo aroornimadii hore ee saakay dishay 44 Falastiiniyiin ah. Madaxweynaha Mareykanka oo uga digay ra'iisul wasaaraha Israa'iil weerarada ka fiirsasho la'aanta. Qodobadaasi oo faahfaahsan ayaa ku maqli doontaan barnaamijkeena maanta iyo dunida. Sida hordhaca wararka idinku sheegay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa xalay fiidnimadii gaaray magaalada Dooxa ee caasimadda dalka Qatar si uu uga qayb galo shir madaxeedka degdega ah ee dalalka Carabta iyo Islaamka ee yeelanayaan oo lagu wado inuu ka furmo magaalada Dooxa ee caasimadda dalka Qatar. Madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa markii ay ka soo degeen garoonka diyaaradaha ee Xamaad waxaa ku soo dhaweeyay ra'iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiiru dowlaha wasaaradda gaashaandhigga mudane Sheekh Sacuud bin Cabdiraxmaan bin Xasan iyo safiirka jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya mudane Maxamed Axmed Sheekh Cali. Dhinaca kale ciidamada Israa'iil ayaa dilay 44 Falastiiniyiin ah kuwa kalena waa ay dhaawaceen weeraro kala duwan oo ka dhacay marinka Gaza. Waxa ay sidoo kale dib u soo cusboonaysiisay digniintii ay u jeedinayeen Falastiiniyiinta ku sugan magaalada Gaza inay ka guuraan oo ay u sii jeedaan dhanka koonfureed iyaga oo sii maraya wadada Rashiidul Baxri. Diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil ayaa in ka badan hal mar beegsaday oo burburiyay dhismo ku yaalo jaamacadda Islaamiga ah. Diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil ayaa duqeeyay goobo ku yaalo bariga barkada Al-Sheekh Ridwaan ee waqooyiga magaalada Gaza. Dhanka kale ciidamada Israa'iil ayaa sii waday inay waraaqo ku daadiyaan goobo kala duwan oo ka tirsan magaalada Gaza iyaga oo uga digaya shacabka inay u guuraan dhanka koonfureed ee marinka Gaza iyagoo ku tilmaamay magaalada Gaza inay tahay aag dagaal oo khatar ah. Dhinaca kale madaxweynaha Mareykanka Donald J. Trump ayaa isniintii xaqiijiyay in uu u sheegay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu in uu ka taxadaro marka uu weerarayo dalalka kale. Waxa uu sidoo kale carabka ku adkeeyay in iska hor imaadka Xamaas ay tahay arrin Israa'iil ay leedahay balse ay tahay inay si taxadar leh u go'aamiso ujeedadeeda sida laga soo xigtay warbaahin Mareykanka uu leeyahay. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa intaa ku daray in Qatar ay tahay saaxiibka weyn ee Mareykanka. Daawada marka hore muuqaalka Lexar oo sii share garay naguna soo biirsi mar walba ay kugu soo dhacaan dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee caalamka.